bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti habboon saaxiibada inagu xiranow halkaad inaga daawanaysaan waa runsheeg t v waa bartaaynu youtube-ka ku leenahay saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo casuumaad u fidiyey laba ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo abiy axmed uga digay faragelinta arrimaha gudaha soomaaliya israa'iil oo hakinaysa duulimaadyada diyaaradaha ee abutubay iyo madaxweynaha hirshabeelle oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kala shareeya amniga qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin haynaa fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan like-na aad nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinkaale saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa casuumaad u fidiyey laba ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan addis ababa oo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed uga digay faragelinta arrimaha gudaha soomaaliya xogo diblomaasiyadeed ayaa sheegayay in itoobiya ay casuumaad rasmi oo ay ku booqanayaan addis ababa u dirtay madaxweynayaasha laba maamul goboleed oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sida ay cadaynayaan warar hordhaca itoobiya waxay si dhab ah u soo nooleysay siyaasadeedii ay tobanaanka sano kula macaamilaysay hogaamiyaasha maamul goboleedyada waxayna casuumaada xukuumadda abiy soo baxday wararka qaar ay tilmaamayaan in madaxweyne farmaajo oo weli ku sugan addis ababa uu ka biyo diiday in ay xukuumadda abiy farageliso arrimaha gudaha soomaaliya lana macaamisho maamul goboleedyada iyadoo uu dalku leeyahay madaxweyne qaran warbixinta kuma cadda madaxda looga wacay caasimada itoobiya ee addis ababa hase yeeshee hogaamiyaha puntland siciid deni oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimo soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inuu ku jiro labada la casuumay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo horey xiriir fiican ula lahaa addis ababa ka hor imaanshihiisa abiy axmed ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inuu ku jiro madaxda la casuumay xilli ay xusid mudan tahay in deni iyo axmed madoobe ay ka macaashaan burburinta dalkeenna iyo dowladnimadeenaba labadan hogaamiye waa deni iyo axmed madoobe waxa ay dhowaan kasoo laabteen dalka isutaga imaaraadka carabta wax yar ka hor inta uusan abedobay booqasho ku tegin ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isla toddobaadka uu dalkaasi u safray ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble imaaraadka waxa ay saameyn xoogan ku leeyihiin siyaasadda geeska afrika waxaayna si buuxda u garab istaageen maamulka abiy xilli uu u baahnaa taageero caalami ah kadib dagaal kharaar uu la kala kulmay TPLF taas oo imaaraadka iyo itoobiya dhex dhigtay isu soo dhawaanshiyo xidid adag leh imaaraadku waxa uu si adag kaga soo horjeedaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dalka mar labaad xukuma ku soo laabto xukunka ugu sarreeya soomaaliya waxaa la fahamsan yahay inuu ka shaqaynayo kala goynta ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo sanadihii ugu dambeeyey xiriir wanaagsan lahaa waana sababta ay itoobiya usoo nooleynayso siyaasadeeda ku wajahan la macaamilka maamulada villa soomaaliya ayaa iyana go-aan ka qaadatay dhaqanka foosha xun ee abiy axmed kula macaamilaya maamul goboleedyada waxa uuna madaxweyne farmaajo go-aansaday in aysan labadaasi maamul u dhoofin addis ababa cadaymaha muujinaya in abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya uu dhabarka u jeediyey madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo sanadihii ugu dambeeyey ay saaxiib ahaayeen waxaa ka mid ah inuu u codeeyey una ololeeyay dalka jabuuti xilli soomaaliya iyo jabuuti ku loolameen xubinnimada golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika 3 cisho ka hor kursiga jabuuti ay hadda hanatay qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah israa'iil ayaa hakinaysa duulimaadyadeeda diyaaradaha ee abudubay israa'iil ayaa axaddii sheegtay inay hakinayso duulimaadyadeeda diyaaradaha israa'iil ay ku tagaan dubay maalmaha soo socda sababa la xiriira muran ku saabsan nidaamka amni balse weecin karo amaba loo weecin karaba magaalada abudubay saraakiil israa'iiliyaan ah ayaa sheegay nidaamka amni ee iminka ee 3 diyaaradood israa'iil u duulaan dubay kuwa oo kala ah al isra iyo al arki oo u dhici doona talaadada taasoo ku qasbaysa in wadaxaajoodayaasha labada dal inay isku raacaan mid cusub ka hor waqtigaasi duulimaadyada tooska israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa bilowday kadib markii labadan dal ay heshiis rasmi ah kala saxiixdeen sanadii 2020 boqolaal kun oo israa'iiliyaan ah ayaa markaasi booqday amaba u duulay imaaraadka carabta diyaaradaha israa'iil ayaa waxaa hoos tagaan hay'adda amniga gudaha ee Shinbi taasoo sheegtay in khilaaf kala dhaxeeyo dhigeeda imaaraadka uu hakin karo duulimaadyada balse ma shaacin waxa uu yahay haddii la hakiyo duulimaadyada diyaaradaha israa'iil ee Dubai waxaa suuragal ah in loo weeciyo Abu Dhabi taasi oo hadda
la diyaarsanayo. waxaa sidaasi sheegtay amaba soo saartayba shirkadda Shinebit. xafiiska warbaahinta Dubai kama jawaabin codsi loo diray oo la xiriira inay arrintaasi ka jawaabaan. haddii la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha Israel ee Dubai, waxaa ka faa'iidi doonta shirkadda Fly Dubai ee Imaaraadka oo hadda samaysa duulimaad toos ah oo u dhaxeeya Dubai iyo Tel Aviv. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Hirshabelle oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee kala shiray amniga. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawo Xuseen ayaa shir gudoomiyay kulan guud ee amniga oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. shirka amniga oo ay ka qayb galayeen wasiirka amniga Hirshabelle, maamulka gobolka Hiiraan, taliyaha qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka, taliyayaasha guutooyinka 4 iyo 5 qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka, xeeralaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka, taliyaha ciidanka booliiska Hirshabelle, taliska qaybta booliiska, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka, saraakiisha ciidamada Gorgor iyo Haramacad ee howlgalka u jooga magaalada Beledweyne, iyo saraakiisha ciidamada Amisom, iyaga oo madaxweynaha la wadaagay xaaladda guud ee amniga gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. madaxweynaha ayaa faray saraakiisha hay'adaha amniga inay xoojiyaan amniga guud ee deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka. inta uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne, madaxweynaha Hirshabelle ayaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la yeesho odayaasha iyo waxgaradka Beledweyne, isagoo kala hadli doona xal ka gaarista tabashada ay qabaan bulshada magaalada Beledweyne. ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor. kulanka ayaa labada dhinac waxay diiradda ku saareen dardargelinta doorashada iyo dhamaystirka la dagaalanka ururka Al-Shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta uga mahad celiyay dadaalkiisa ku aadan dhamaystirka arrimaha doorashooyinka, isagoo ballan qaaday in Galmudug ay degdeg ku dhamaystiri doonto xubnaha uga harsan doorashada golaha shacabka. Galmudug ayaa waxay ka mid tahay maamulada dalka ka jira ee wada qabashada doorashada golaha shacabka, waxaana xusid mudan in kulankan uu qayb ka ahaa wasiirka ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo sanadkan ka mid ah musharaxiinta golaha shacabka. waxa saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna warkaad ka daawanaysaan Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan naxariis leeyahay kaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saaraan, like-na nagu dhiirigelisaan, gamalalka furataan, soo warbixinada ugu dambeeya aad u heshaan idinka alle.